Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland oo dardargelinaysa howlaha hortebinta u leh wasaaradda si loogu adeego bulshada Jubbaland ayaa toddobaadyadii u dambeeyay qabatay tababaro aqoon kororsi oo lagu taabagelinayay fahamka dowladnimada ay ka haystaan bulshada reer Jubbaland. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa degmada Afmadow iyo deegaanada hoos yimaada ka qabatay tababarka madasha wada-tashiga bulsho ee dejinta qorshaha horumarinta degmada Afmadow, kaas oo looga fakarayay aragtiyona la isugu biirinayay qorshaha 5 sano ee soo socota looga shaqayn doono laguna horumarin doono degmada Afmadow iyo deegaanada hoos yimaada. Iyadoona tababarkan aqoon isweydaarsiga oo socday muddo ku siman 4 cisho ay wax badan ka kororsadeen bulshadii deegaanka ee loo qabtay. Dadkii tababarkan maalmaha socday loo qabtay ayaa laga naawilayaa in ay qorshahaas muhiimka ah taabagelintiisa ka qayb qaataan si degmada Afmadow iyo deegaanada ku teedsan ay barwaaqo iyo horumar u gaaraan. Docda kale, wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa qabatay tababarka howlwadeennada kulamada wada-tashiga bulsho ee taabagelinta buugga degmada Afmadow. Tababarkan aqoon isweydaarsiga ah ayaa ujeedkiisu ahaa in dadka fikrado laga aruuriyo si loo diyaariyo buugga horumarinta oo ay ku qeexan yihiin qorshaha 5 sano ee soo socota lagu maamuli doono degmada Afmadow iyo deegaanada ku teedsan. Tababarkan oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan 50 qof, isla markaasina loo diyaariyey sidii ay casharadii ay barteen ugu sii gudbin lahaayeen bulshada inteeda kale, kaas oo wax badan ka bedeli doona qorshe la'aantii lagu wajihi jiray howlaha hortebinta leh ee degmada horyaalla. Waxaana uu buuggan marka la dhammaystiro qeexi doonaa shaqooyinka ay tahay in la qabto iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin, iyadoona fikradaha dadka laga aruurinayo ee la kaydin doono ay faa'iido badan u leeyihiin dadka iyo deegaanka. Geesta kale, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland oo ku guda jirta gudashada waajibaadkeeda shaqo ayaa qabatay tababar aragti aruurin ah, kaas oo ujeedkiisu ahaa qorsheynta magaalooyinka iyo la tashiga carruurta ee qorshaha horumarinta degmada Afmadow. Tababarkan aragti aruurinta ah oo socday muddo dhowr cisho ah ayaa afti looga qaaday carruurta ku nool degmada Afmadow iyo deegaanada ku teedsan, iyadoona muwaadiniintani wax laga weydiiyey sida ay u arkaan in lagu horumarin karo deegaanka. Tan ayaana muujinaysa sida ay wasaaraddu uga go'an tahay tallaabada ay qaadayso in ay wax ka weydiiso cid walba oo ay saameynayso. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa wacyigelino kala duwan oo ku saabsan ka qayb qaadashada horumarinta deegaanka qabatay, iyadoona goobo kala duwan bulshada kula hadashay kuna boorisay in ay ku dhiiradaan talo ku yeelashada qorshaha horumarinta degmada Afmadow iyo deegaanada ku dhow. Si kastaba, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maalmihii u dambeeyay xoogga saaraysay qorshe baaxad leh oo maamul daadejin ah, kaas oo shacabka talada gacanta loogu gelinayo loogana talogelinayo tallaabooyinka muhiimka u ah dadka iyo deegaanka inta aan la ambaqaadin.